وعيد السلام الدمان ولا لا كحر يوتيوب channel كيجا وحا هوري نوغو سعودي برنامج تحنا أها هويدا مركي أورك ليدا هاي حيليغا دالمدا هويدا قلينكا هويدا كالي هادي مانت waxaan ka hadlayaa oo gabdhaha iga codsadeen waxay tahay oo dhowr jeer ay dhaheen in nagala soo hadal waxyaabaha badiyo naaska caanaha xiliga oo naas nuujinta hooyada ay ku jirto waxa way marxalad kala duwan bay maraysaa waxyaabaha qaar oo caawinayo gabdhaha qaar caanaha ay soo deynayaan waa caano ku filan ilmo dad qaarna caano badan maba lahanba ama operation bay ku dhashay ama xaaladii waqtigii la gaarin ka hor bay u mashay hooyadii kale waxyaabaha caawin karo waxa u kala bixinayna waxyaabo natural ah iyo waxyaabo kale horta mar walba waa muhiim hooyada inay jirkeeda ay siiso dehydration aysan noqonin oo hydrated ay tahay oo biyo badan ay cabto waxyaabaha oo number 1 ugu muhiimsan waxa way mar walba ina biyo badan cabtid operation ku dhal ama normal u dhal ama waxa way waqtiga la gaarin hada u mashido kare barbaajur u yaa cunugaaga so biyaha waa muhiim biyo badan waa ina cabtaa hada operation tahay way ku caawinayaan hada normal dhashin way ku caawinayaan waxa kale oo ku xigo waxyaabaha juiceska laga sameeyo smoothie-ga ha noqoto blueberry-ga sida canabka iyo waxyaabaha soo kale strawberry-ga caanaha ina ku shiidatid ina moos ku darsatid fruit natural ah laakiin juice uu yahay juice yara adag xogo bibiika ahayn oo smoothie ah waxa kale oo ku caawin karo waxyaabo cuntooyinka naturalka ka hadleena oo aad inay naaska caaniisa ay u badato ka qayb qaataan waxa kamid ah malaayga kale ina cuntid hilibka cad wuxuu ahaadaba haday tahay chicken ko kale ukunto kale borotiinado dhan way ku caawinayaan waa cuni kartaa digirto kale malaaygu waa number 1 horta asagana laga ma hadli karo waxa kale oo ku caawin karo oo cuni kartaa quraacdo kale ka dhigan kartaa porridge-ka ina ku darsatid kale looska ina ku jarjaratid waxyaabo fruits ah waxa heli kartid carrot-ko kale ina sideeda ku fiiqatid ama juice ka samaysatid cuntid hadaad carrot-ka juice aad ka dhigan kartaa waxa ku darsan kartaa kale liinta oranjaha ama ananaaska whatever adiga arabtid aad ku jiidan kartaa intaas kadib waxa waa gabdhaha sirta oo ka qarsoon oo mar walibana aad ku fudud ay heli karaan waxa waaye xulbada waxay ka qayb qaadataa inay naaska caano badan uu soo saaray ka qayb qaadataa soo xulbadaas biyaha adiga shaah laga karinayo kale hadaa ku karkarsatid ama sideeda aad u cabi kartid maalintii laba qaado kale ina shiitid cabtid waa muhiim aad bay ku caawinaysaa soo waxyaabaha aan naturalka ahayn oo laakiin ku caawin karo waxa kamid ah bahasha mamalita la dhahayo kale waa powder waxa ku dhex darsanaysa sida kafeega oo kale waaye adi waa chocolate powder-ki oo kale kafeega maahan waxaad ku dhex qasanaysaa caanahaga dhaqaatiirtan way ku taliyaan marka adiga isla marka aad dhashid hadaad operation ku tahay hadii kaleba waxay ku dhaayaan first week ama 2 weeks ko kale u horeyso caad bahashan cab zaaid oo cab sidoo kale cocoa-gan oo kale oo powder-ka asagana waad cabi kartaa especially gabdhaha operation ku dhalo aad bay u caawinaysaa dhabar xanuunka kale irbad qofka markii la duro dhabarka aad buu xanuunaya way ka caawinaysaa way u fiican tahay suntaas anesthesia iyo waxaas oo dhan way ka bixinaysaa caffeine maadada dhaha ayaa ku jirto oo ka qayb qaadanayso xanuunkaas inuu ka reduce gareeyo ama uu hoos u rido kale soo noocyo badan bay ku imaataa noocan helaysiin noocyo kale helaysiin laakiin waa drinking chocolate kamidka ah oo cocoa uu ku jiro soo taasna waxay ka qayb qaadanaysaa naaska inay caano badan ay soo saarto waxa kale oo kamid ah mishaariyada kale mishaariyada way kala tahay laakiin qaybo qaar waxa jiro oo ka qayb qaadanayaan oo kale caano badan inay soo saarto mid kale gabadha umusha ah waxa ku filan Soomaalidan si qaldan baa u isticmaalna 2 koob hadaa cabtid ama 1 koob way kugu filan tahay maalintii waxaan tarmuus kala buuxinaa xagga iska dhiga muhiim ma aha weight zaaid bay ku saaraysaa nooca doonta adiga waa isticmaali kartaa hadaad rabtid mid aad shiidatid oo kale waxyaabaha aad ka samaysanaysid waa inay xulbada ku jirtaa waa inuu looska ku jiraa waa inuu bariiska ku jiraa caanaha ay ku jiraan waxyaabo badan baad ku saacidi karo hadda sisinto kale waa inaa ku darsataa waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan inuu naaska caano badan uu soo saaro oo cunuga caano ku filan uu helo baashan waa taa hadii sheegay dhaqaatiirtu ay ku taliyaan aad bay u fiican tahay especially first 2 weeks waa la isticmaalaa caanaha mashashaaha waxa cabisid lagu dhex darsadaa qaado iyo laba qaadaba sidoo kale waxa waa muhiim inaad mar waliba gabaray waxyaabo wax ku taraayo jirka maadaama dhiig badan uu bixiyay oo muddo badan aad soo walacday xaamilo soo noqotay culeys badan soo qaaday wax laga soo gooyay wax nafaqa waa inaad heshaa baashan oo kale milo la dhahayo waa sida caaniyo kale asaga iyo powder-ka la isku qasaa biyo kulul lagu qasaa ayadana waa lacaba way ka qayb qaadataa laakiin always waxa muhiim ah natural inaad raadisid fruit-ka aad isticmaashid green-ka aad isticmaashid soo waxaan rajaynayaa